Nelson Mandela wuxuu yiri maalin weligeyga ma lumin, waan guulaystay ama wax baan bartay, laakiin weligeyga ma lumin. Waxaan la kulannaa mar uun noloshayna guuldaro, haddii aan jeclaan iyo in kalebo ma samayn karno taas inaan ka baxsano. Waqtigaas noloshaada waxaad yeelan doontaa oo aad arki doontaa hoos inaa u dhacdo. Waqtigaas oo aan qiimo badan ku lahayn, waxaa suurtagal ah inaad dareento dambi, waa in kaa lunto kalsoonida naftaada. Marka ay kugu dhici doonto, waxaan jeclaan lahaa inaad xasuusato tan: dhammaanteena guuldarooyin ayaa ina soo maray. Dhammaan dadka aad aragto, dhammaan horyaalada ugu waaweyn, ganacsatada ugu waaweyn, mufaakiriinta ugu fikirta badnaa waxay la kulmaan guuldarooyin, marka laga reebo in yar. Laakiin ma aha sababta ah way inagu dhacdaa in aan khasaarnay. Markaan uursano waynu khasaarnaa, marka ku celcelino soo saarid wax la mid ah waan khasaarnaa. Markaad joojiso inaad naftaada rumaysato waan khasaarnaa. Marka aynu u malayno inaan awoodin waan khasaarnaa. Haddana ma jiro qof aad ugu yar wax weyn inuu sameeyo, ma jiro qof aad ugu weyn inuu sameeyo wax yar. Markasto oo aan u malayno inaan hor joogno guuldaradu, waxaan haysanaa fursad si aan u barano horumarinta dowladnimadeena. Thomas Edison wuxuu soo saaray 9,999 prototype ka hor inta aan la abuurin nalka iftiinka leh. Walt Disney waxaa wax u diiday 300 bangiyo ah ka hor inta aan la helin maalgelin ee beerta madadaalada ugu horeysay. Guuldaradu waxay u ahayd tallaabo in badan oo dhanka guusha ah. Maxaa keenay kuwa guulaysto inaysan qursan niyad-jabka koowaad? Waxay sameeyaan sababtoo ah waxay rabaan riyadooda inay rumowdo. Wuxuu la kulmaa caqabad ee way la dagaaltamaan. Wuu jilba jabsadaa ee wuu kacaa. Guuldarashadu nimadu ma aha wax la qiyaasi karo. Guuldaradu ma jirto, waa waayo aragnimo uun. Haddaba maxaad la guuldaraysan tahay? Ma aaminsantid miyaa in kugu filan riyooyinkaada? Ma aaminsantid miyaa awooddaada? Runtii taas ma sawirka aad isku haysatid miyaa adigu? Mise waxaa lagu sheegay inay ahayd waxaan macquul ahayn? Ma aaminsan tahay dadkaas kuu sheegay tani waxay ka hadlayeen xadkooda ama kaaga? Haddii aadan aaminsanayn waxaas oo dhan, ha ka dhagaysan cabsida. Ha dhagaysan dadkaas oo aaminsanayn naftaada. Kac oo hore u soco. Riyooyinkeena waxaa loo sameeyay inay kor noo qaadaan, si ay tabarta noo siiso, si ay noogu ogolaato in aan nafteena dhaafno. Noloshayna macno ayay siinaysaa. Weligaa ha joojin riyada. Riyo weyn sameey. Weligaa ha joogsan. Weligaa ha joojin. Haddii aad rabto inaad gaartaan riyooyinkiina, laga yaabaa inaadan gaarin iyaga. Ma jiro gebi ahaanba halkaas. Waxaa suurtagal ah inay isbedelaan horumarku. Waddadii tan ma laha wax yar. Muhiimadda ugu muhiimsan waa jidka aad ku socoto, waayo aragnimada aad urursato, kulanna aad samayso. Ha dhagaysan dadka ku dhahayo waad waalan tahay inaadan samayn karin. Awood ma lihid, waad lumaysaa, waad guuldaraysanaysaa. Sababtoo ah wax kasta oo dhaco ayaa ku guulaysataa. Waxay yiraahdeen waxaan ku dilin
ayaa naga dhiga wax kaa xoog badan. oo haa tallaabo kasto aad noqon doontaa ayaa kaa xoog badan. xitaa haddii aad xanuunsan tahay, xitaa haddii aadan fiicnayn, aad la kulanto niyad jab kor u kaca. guuldarradu waa fursad lagu barto fursad, si ay u noqoto mid fursad xooggan. aan u dhowaano wixii naga qoseeya iyo xasuusnaa weligay ma lumin. waan guulaystaa ama waxaan bartaa, laakiin weligayga ma lumin.